soo saaxiibayaal mar kale waxaan idin wadaagi doonaa xogta iyo wararkii ugu dambeeyay duqeymo xalay ka dhacay gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan degmada Jilib. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ayaa xalay ilaa saakay waxay duqeymo ka wadaan degmada Jilib halkaas oo fariisinta ugu weyn kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin. Duqeyntan saakay ilaa xalay Jilib ka socota waxaa Al-Shabaab lagu gaarsiiyay jab xoogan. Duqeyntan ayaa timid kadib markii kooxda Al-Shabaab laga war helay in degmada Jilib halkaas oo ah fariisinta ugu weyn kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin halkaas ay shir ku lahaayeen. Shirkaas kooxda Al-Shabaab ayaa lagu soo warramaya ama xogta la helay ayaa sheegaysa in kooxda Al-Shabaab shirkaasi ay kaga dan lahayd ama shirkooda uu daarnaa sidii weeraro iyo qaraxyo ay ku soo qaadaan fariisimada ciidanka dawladda ay ku leeyihiin gobolada Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose u daarnaa. Sidoo kale warar hoose oo soo baxaya sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay bilaabeen dadka deegaanka in ay la hadlaan kuwaas oo ay ugu codsanayaan in madaxda dawladda eega dadka ku matala dawladda ay la hadlaan kana codsadaan in kooxda Al-Shabaab dawladda ay la gasho wada hadal. Waa kuwana qaar ka mid ah odayaashii Al-Shabaab ee la soo xiriireen kana codsadeen in ay la xiriiraan madaxda dawladda in ay Al-Shabaab wada hadal la galaan. Balna la daabo kana bogo sida ay u hadlayaan iyo Al-Shabaab xaalkooda haatan meesha uu marayo. saddex nimaan nahay waana soo geysteen in dalka aan la hadalnaan rabnaa nimankii kuwa weynaa magacyadooda iyo taleefanadooda haddaan helana waxaan dahli badan yaan intaan hordhacanas aanan iska sii horumarino saasaan idin soo wacnay hadduu ilaahay idmaayo waxaan ka rabnaa haddii alla idmaayo waxaan ka rabnaa nimankii aan warka ka wadnay warkoodii aan idiin sheegaa. Waad u jeedaan kooxda Al-Shabaab meeshii ay marayaan iyo in xaaladda ay ku xun tahay. Lisma dhihin kooxda Al-Shabaab ayaa xilligan talaabo noocan qaadaysa maadaama kooxda Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay xoojisay weerarada qaraxyada ay ku bilaabaan ay ku qaadaan fariisimada dawladda ay ku leeyihiin gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa u muuqata hadda kuwa sii dabar go'aya maadaama guluf ka dhan ah kooxda Al-Shabaab uu ka bilowday gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Shabeellaha Dhexe ayaa haatan ah meesha ugu badan ee guluf uu kaga socdo kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan degmada Cadalle halkaas oo u joogo dardargelinta iyo hogaaminta dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Ku sugnaanta madaxweynaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ah dhiirigelin maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ay ku jiraan halgan ee dalka ugu xoreynayaan kooxda Al-Shabaab. sidoo kale waxaa maalmaha soo la rajeynayaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ku biiro asagana dagaalka si uu qayb uga noqdo dagaalka dalka loogu xireynayo kooxda Al-Shabaab. Shir ay shalay magaalada Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa qodobo ka soo baxay waxa la isku qaatay in xukuumadda dan qaran ay qayb ka noqoto dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab kaas oo hadda guud ahaanba Soomaaliya ka socda. marka loo eego Soomaaliya Al-Shabaab waxay kaga sugan yihiin deegaano dhowr ah. dib u doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Al-Shabaab waxaa lagu qaaday weerar dhur iyo cir ah waxaana laga xoreeyay deegaano gaaraya 120 deegaan. Al-Shabaab waxa hadda gacantooda ku harsan waa deegaano faraku-tiris ah kuwaas oo la rajeynayo in bilaha soo socdo laga saaro lagana xoreeyo guud ahaanba Soomaaliya. sidoo kale saaxiib waxaan rabaa inaan kula wadaago inaad ila daawato odaygan oo ka mid ah dadka degan degmada Jilib. waxa uu ku andacoonayaa oo uu leeyahay uuna ka cawaadayaa duqeyntii Al-Shabaab xalay halkaas loogu geystay taas oo ilaa haatan socota. wuxuu u muuqdaa nin Al-Shabaab ay ka dhex hadlayaan. waxa uu leeyahay waxaan rabnaa in madaxweynaha Soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee naga dhaafaan duqeynta ay ku beegsanayaan deegaanada aan ku sugannahay. deegaanada ay shacabka degan yihiin intooda badan waxa gacanta ku haya degmada Jilib kooxda Al-Shabaab. Al-Shabaab waa la og yahay dadka intooda badanna way og yihiin in fariisinta ugu weyn ay ku leeyihiin Soomaaliya in ay tahay degmada Jilib. aniga ahaantayda ninka markaan fiiriyay wuxuu u muuqdaa nin ay ka dhex hadlayaan ama uu ka dhex gooxayo fikirka kooxda Al-Shabaab. bal adiguna ila daabo ilana qiimeey qaabka uu hadlayo ma kula tahay in fikirka kooxda Al-Shabaab uu ka dhex gooxayo odaygan. marka aad fiirisid waa oday 70 ama 80 jir ah. waxa uu ka dacwoonayaa ama uu ka cabanayaa duqeynta la beegsanayo kooxda Al-Shabaab. ha ka cawada ma xumo
ama ha u danqada muxuma dadka deegaanka ah ee duqeyntaasi saameysay, balse digniino hor leh oo dowladda kasoo baxay inta duqeymaha fulinin ayaa ahaa in dadka deegaanka ay ka fogaadaan goobaha al-shabaab ay ku sugan yihiin. sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya, shakhsi walba oo al-shabaab oo meel ku sugan waa hadaf, sida uu yiri madaxweynaha, taas oo micnaheedu ay tahay shakhsi walba oo al-shabaab ama xubin walba oo al-shabaab ka tirsan meel kasta ay joogaan hadaf. taas micnaheedu waxay tahay waxaa lala beegsanayaa duqeyn. taas bedelkeed markaad fiirisid odaygan 80 jirka ama 70 jirka ah ma kula saxan yahay ama uu kula qaldan yahay, uu ku hadlayo waa fikir kooxda al-shabaab ay leeyihiin. waxaana uu egyahay nin la soo adeegsaday oo al-shabaab ay usoo dhiibeen codsi ah in dowladda Soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ah ee duqeynta ay ka wadaan gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan degmada Jilib ay joojiyaan. bal adiguna ila daabo ilana qiimay fikirkaana qaybta hoose comment-ka nagula wadaag. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh channelka, siina share garay, like na saar. aad iyo aad u mahadsan tahay. xasan markuu dowladnimada jirihay oo ordaayay wuxuu u magan galay Muuse Suudi. Muuse Suudi aan ugu soo barbaarshay. war Muusow adiga xaniyaa laga sheegi jiray soo ma damqatid awal yaa Muusow xaniyaa laga sheegi jiray. Muuse waa damqadaa, dadkiisana wuu damqadaa oo la dhihi jiray Muusow xataa adigu ma damqatid miya oo xasan shala adaa magan galshay hadda ma dhihi kartid miya waxa uu rayidka ka dhaaf dagaal waxa uu masaakiinta baaba ee iska dhicir nimanka aad la dirirsantahay faca ma dhihi kartido. sidaas aawadeed Muusow annagana waxaan ku sheegaynaa xaniyaan kugu maqli jiray xaniyihii laga sheegi jiray xasan gurgurta aad ku magan galisay haddeerna dadka rayidka ah masaakiinta oo baabiyahay uga dhici. inta kale waxaan idin sheegaynaa masaakiinta la baabiyahayo oo la layhayo waa meeshii uu u dhashay xasan gurgurte, meesha uu ka dhashay waaye, magaalada uu u dhashay waaye. waxa waaye dadka kale inay ku quus qaataan inuusan wax uu reebaayo jirin, ousan feen reebayn, ou nin yahay go'dooma, ou nin mucjisa yahay, ou halis yahay. waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed annakii oo dadka ka dhashay ah ayaa dhulkaan bariga saan u yaallaa oo saan u baabiyo